dadku way walaahobayaan oo way iska daba ka wareegayaan marba rasuul baa loo imanaya Muusa loo imanaya Ciisa loo imanaya Nabi Ibraahim baa loo imanaya Nabi Nuux baa loo imanaya waxna la qabo xaaladdu waa adagta nabi waliba waa cudur daaranaya rasuulka loo imanaya sallallahu alayhi wasallam markaasuu oranaya ana laha ana maanta iskale inaan idinka erga qaado markaasuu nabigu tegaya markaasuu wuxuu imanaya arshiga Ilaahay hoostiisa markaasuu ku sujuudaya sujuud dheer markaasuu nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salatu wasalaam du'a aanan waligay ku ducaysan iyo amaan aanan waligay Ilaahay hore u amaanin ba Ilaahay ii furaya markaasan Ilaahay amaanaya oo alla baryaya markaasa Ilaahay la hadlaya Muhammad irfa' ra'sak Muhammadow kor qaad madax toos wasal tu'ta weydiiso waxa doonto waa ku siinaya weydiiso maanta washfa' tushaffa' ergay weydiiso ergadaada waan aqbalayaa markaas nabiga waxa loo fasaxaya shafaacatul udma shafaacadi weyneed inuu qaado salawaatullaahi wa salaamu alayhi kuwi gala shafaacadiisa ilaahay inagu daro subhanahu wa ta'ala malaa'ikti baa imanaysa makhluuqi oo dhan ayaa isweer laga qabanaya wal malaa'ikatu waji'a yawma idin wajaa rabbuka wal malaa'ikatu saffan saffa malaa'ikti baa imanaysa markaasa makhluuqiyo toban bay xagga sare dusha ah bay sida u soo degayaano way isku hareereynayaan jahannamana waa la keenaya iyadoo halamsanaysa oo qaylada ka baxaysa iyo jibaadka iyo hugunka ka baxaya aad yaabayso marka jahannama la soo wado 70000 hoggaan bay leedahay halkii hoggaan ama xarig oo kaliya 70000 oo malag baa sida u jiidayo haya markay bidhaan fog gaaladii ka aragto iyo kuwii falalowga ahaa iyo munaafiqiintii ayay jannadii naartu bilaabaysaa inay markaa hadasho ay bilaabaysaa maxay oranaysaa idaa ra'athum min makaanin baciidin sami'u laha tagayyudan wa zafira meel fog markay ka aragto ayay waxay ku siganaysaa inay dildilaacdo ba ilaahay carada iyo ciilkay u qabto way soo dhawaanaysaa ilaya ya kaafir ilaya ya munaafiq ilaya ya saahir ilaya ya taariku salah ana kuleh maanta ku cunaya taariku salaadkiyo saahirkiyo ana maanta ku cunaya gaalkiyo ana maanta ku cunaya munaafiqiyo maanta aniga ku cunaya saasay leedahay naarti baa la keenay 70000 oo malag baa sida 70000 oo hoggaan bay leedahay hoggaan walba 70000 malaayiin malaa'ika baa u jiidaysa markaas Ilaahay saa ugu guraya subhanahu wa ta'ala marka lagu guro ba alla wuxuu oranayaa yawma naqulu li jahannama hal imtalat jahannama la hadlaya ma buuxsantay jahannama ma buuxsantay hal min mazid ilaahu wax kororsiima ama haysa wali dhowr khanfara badan baa banaan wax ziyaada ilaahu ma haysa ma ujeeda ahin adag oo khatar ah ayaa jirta oo qofku la rabo inuu u tabaabushaysto oo maalinta yawmul qiyaamo u dadaalo sidoo ilaahay ugu dhawaan la subhanahu wa ta'ala waxa kamida xisaabti baa la isugu imanaya markaasa dadkii la xisaabaya rabbigood baa la horkeeni doonaa acmaashoodii qof walba cimrigiisa la weydiin doonaa cimrigaan ku siiyay adigoo intaas oo sanadood jira ayaan adduunka ka soo qaaday maxaad cimrigaagii kaga faa'iideysatay dhalinyaranimadaadii ka waran maxaa iligan ka riday ilaa hada waa aragto ilkii qaad bayna ka riday Soomaa ilku waa meesha ugu adag qofka bani aadamka jirkiisu waa lafaha adag balbahalka saa u burburiyay urku jirta maxaad u malaynaysaa kilihi iyo beerki iyo mindhicirada iyo caloosh iyo uski ka war inta waxa ka sii dheer dhibaatada kale ku geysanay ragga qaadka cunay barinsade ku caan baxay islaamuhu waa ka cawdeen ninkii laba dumar mi isku qabi karaa dumar qaad la yiraahdo iyo islaam halka fadhido khayr qabta mi isku qabi karaa isku qabi karadii ma arabtu waxay tiraahdaa man rakiba farasayn shaqa dubura laba faras qofka intuu fuulo waan caydinaya yiraahda dabada kala dilaacday yiraahdeen miyad fuuli karaysaa laba faras oo mayde midun baad ku hadhaysaa Soomaa ama tan aad u go'aysaa islaantan halka lagu sito ee qaadka la yiraahdo ee marka la qaato xitaa sida loo jecel yahay banaanka lama keenayo alkaas la gelinaya garanka waa laga hoosaysiinaya islaanta aad laabta gelinayso ama tan aad u go'aysaa
caruurtii iyo ubadkii maba xusuusanaya ninkan qaadka cunaya dadku ma kudkuda ciiday cunayaan islaanta iyo ubadku markuu qaadkiisa iyo qadadiisa iyo cadkiisa meel saariyo shahaysa iyo burburintiisa ayuu xusuusanayaa oo oranayaa 20 kaalaanka bal caruurtii xugu wax waxee ama 30 kaas oo oranaya ma ujeeda waxa la weydiin doona dhalinyarinimadiisii iyo cimrigiisii iyo maal adduunka wixii soo galay xaguu ka keenay xaguu ku bixiyay waxa soo dhan baa la weydiin ban ishan maxaa ka riday iligan maxaa riday maxaa gacantan ka jabiyay dakharkan maxaa ku yeelay adigoo wanaagsan oo qurux badan baan ku abuuray yaa iga ka dambeeyay kiilku qaad ka laasteen ilaahayow saan hawada iyo jabisiyo